warsheekada waaba kasii dartaba sheekada atreere waa dhaaftay tare waa uruwe marowsa maqash war taraamba ninka labaad ee ugu cunsurisanaa ee ugu necbaa soogalootiga ugu necbaa derbi kabood ugu necbaa soomaalida waa ninka labaad ayuu maanta jago u magacaabay labadaasna wejigooda u jeedaan dadka soogalootiga mass deportation masaafurinta tan ugu ballaarneed dadkii waa raggii ka dhaadhiciyey kuna qanciyey maxaa lii jirtaan maamulkiisa in arrinkaas hooyo aan la cafinin aaba aan la cafinin carruurta yaryarka xitaa carruurta yaryarka ah oo hadda dhashay maamada derbi kala soo booday hala dhoofiyo hala musaafuriyo kuwii dhahay mayal adeeg cunsurinimo ma jiri jiray labadaa dhinac keen miller waa ninka hadda la magacaabay maanta la magacaabay Stephen Miller maamulkii hore ee Trump uu ku jiri jiray waa ninkii Soomaaliya iyo 7 dal kale ee muslimiin ah in laga mamnuuco Mareykanka inay soo galaan waa ninkii soo alifay ee Trump maamulkiisii hore waagu Trump madaxweyne ahaay ninkii ka dhaadhiciyay Trump inuu muslimiinta ka mamnuuco inay soo galaan Mareykanka waay Stephen Miller waa cunsuri and Stephen Miller waa isla ninka Project 2025 qoray waa ninka yiri Israel waxay ogoshahay kaliya Afrika iyo Bariga Dhexe ha laga fuliyo waa ninka yiri Stephen Miller ma jixinjixo lama cabsado argag waxyaabaha qaabka daran iyo naceebkii waxyaabahaas lama cabsado asiga toos ayuu dadku usoo istaagaa ciyaal derbi kabood waa ninka sida tooska ugu sheegay wuxuu yiri carruurta yaryarka aan dhashayna idinka qaadanaynaa labadiina waa idin musaafurinaa carruurtana goorina loo musaafurinaa idinkina waa yacni jixinjix kuma jiro kaas waa Stephen Miller Tom Homan asagana waa Stephen Miller maxaa loo magacaabay Stephen Miller waxaa loo magacaabay ku-xigeenka la taliyaha Donald Trump ee maamulka soo socda 4 sano 2025 bilaawanayo la taliyaha arrimaha siyaasadda waxa ku jiro Soomaaliya Kenya Ethiopia Bariga Dhexe iyo waxyaabahaas ku jiro marka Ethiopiaanka kule maanta way faraxsan yihiin waa raggii ay rabeen cunsuriyiin nooc ugu xumaay oo ay rabeen hal soo magacaabo marka anaga dagaalka kulay dagaalkii waxa waay sheekada Abi Ahmed le burbursan jirnay haduu wixii ka dambeeyo waxa baqli doontaan anagoo Trump burbursanayno maxay labadan nin danaha Soomaaliya meesha u joogaan labadan nin danaha Israa'iil u joogaan Israa'iilna cunug yar oo daba dhilif ah Afrika u fadhiyo oo Ethiopian ah marka sheekada way si adkaan doontaa fadhi ma jiro ee walaalayaalow bustal iska jaf hal istaago waayay marka asaga ninkaas waxa loo magacaabay Stephen Miller waxa loo magacaabay la taliyaha arrimaha siyaasadda loo magacaabay Tom Homan asagana waxa loo magacaabay arrimaha derbiga iyo derbi kabood iyo kii derbiga kasoo booday iyo wixii waa maqlaysana hadda xitaa sheekada lugta in la iskaga xiro bahalkaas marka Trump wuxuu ku hormaray uu sugi laayahay ilaa dhaarta uu ka mar uu sugi laayahay labadii nin ee ugu xumeed ee annaga dhan ciyaal hadaan ay reer Mareykan labadii nin ka cabsanayeen ee ugu xumaay ugu cunsurisanay ayuu horta soo magacaabay oo way magacaabin yihiin 4 soo socoto wajiidaan aan soo hortaagnaan doono waxaa jiro raggan waa labadii nin ee qoray Project 2025 waxay Project 2025 ku dareen wax loo yaqaano Abraham Accord number 2 Abraham Accord number 2 jiro ogaada oo hadda koor Israel Imaaraadka Carabta Bahrain iyo Morocco iyo Sudan waa waa raggii soo alifay barnaamijkaas in Yahuuda iyo Carabta la heshiisiyo waa rag u ololeynayo in Donald Trump uu aqoonsi buuxa siiyo Somaliland ragaas waay marka dagaalka kulay horta ciyaal derbi kabood ama dhalinyarada derbi kasoo booday ragaan in la soo magacaabo qeyr kuma jiro wallahi inuusan qeyr ku jirin wax sharci ahayn horta ay soo wadaan marka laga hadlo arrinka derbiga iyo sogolootiga iyo Soomaalida Mareykanka joogto marka busta hal iska jafo Soomaaliyeey ninka Donald Trump wallahi jajix way qaad pastor way